dadweynaha magaalada Boorama ayaa dareenkooda ka dhiibtay sidii habsamida ahayd ee ay u qabsoontay xil wareejinta labada madaxweyne ee isbedelay ee Soomaaliland taas oo ay ku tilmaameen tallaabo soo jireen ah oo ay Soomaaliland dheer tahay dalal badan oo caalamka waxaana sidoo kale dadweynahani ay fariin u direen madaxweynaha Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro iyagoo markaasi kula dardaarmay in uu fuliyo ballanqaadyadii uu sameeyay waqtigii doorashada ee ku suntanaa in boqolka maalmood ee u horeeya xukuumaddiisa ay noqon doonto maalmo waxqabad waxaana dadweynaha reer Boorama oo hambaliyo dardaaran iyo duco dareenkooda ku cabiraya hadaladoodii kamid ah bulshooyinka Soomaaliland waxaan leeyahay saaka waa cusub inuu bariyaan Ilaahay uga bariyaya madaxda xil wareejinaysana wixii ay haayeenba way tageen xurmiye karaameyna ku tageen qofku guul iyo libin waxa uu ah in waxna uu qabto waan la iga guuleystay uu yiraahdo guulka weynaan uma garanayo inta markaan ka imaado madaxweynaha la doortay waxaan leeyahay Ilaahay xilka kugu asturo haddaan reer awdal lahayna reer awdal waxaan leeyahay boqolka maalmood ee ugu horeeyaan xukuumadda sugayna waayo gobol waxaynu nahay ka hadhay horumarkii waxaan nahay gobol ka hadhay halbowlaha dhaqaalaha marka la yiraahdo laga reebay xukuumaddii hore wax alla wax mashruuc kaabayaal dhaqaale ah oo gobolka awdal ay ka hirgelisay ma jiro 14 sanadood intii reedeys Iiraan ya dhisay mooyaane wax kaabayaal nololeed dawladda dhexe ka hirgelisay ma jirin taasoo ay ahayd Soomaalilandnimada lagu qanacsanaa isbedel markii la lahaana kuwii ugu horeeyay isbedelka hirgelinaya ahaa maanta isbedelkii la sheegay waa hirgalay gobolka awdal waxaan uga fadhinaa haddii xukuumadda noqoto hirgelinta mashaariicda ugu waaweyn Soomaaliland ka hirgalaysa kuwa miiska saaran ee wadada loo yacday ilaa iyo Boorama isku xiraysa ka wadada Baki tan Boorama isku xiraysa mantaqaana iyadana waqooyiga magaalada intaasi marka laga imaado dawladda dhexe xukuumadda waxaan uga fadhinaa boqolka maalmood ee ugu horeeyay tallaabooyin cad oo muuqda ka qaado gobolka awdal isku xirkii baa ka dhintay khayraadkiisii baan maanta meel uu iskaga soo gudbayaa jirin haddii aan xukuumadda cusub ee maanta la doortay codka shacabka haysata talooyin siiyo marka koowaad wax far badan baa u yaala marka wadi Ilaahay xilka ku astiro iyaguna Ilaahay ka dhigo kuwii xilkooda guta waajibkooda iyo mas'uuliyadda ummadda iyo dalka ka saaranba sida ugu hufan uguna kartida badan u guta Ilaahay ka yeelo waxa u yaala xukuumadda cusub inay ka shaqeyso midnimada iyo walaaleynta shacabka kulli waxa jira wali xanaftii doorashadii ayaa jirta oo waxa weeyaan dadku xisbiye kala taageersanayeen laakiin waxa weeyaan kii xisbiga kulmiye u codeeyay iyo kii xisbiga wadani u codeeyay iyo kii xisbiga u codeeyay maantaba waxa madaxweynuhu ah Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa madaxweynuhu ah ummadda oo dhan mucaarad iyo muxaafidba adiga madaxweynuhu ah adiga laga rabaa inaad midnimadooda ka shaqeyso adiga laga rabaa inaad cadaalad ku dhaqdo adiga laga rabaa inaad isku keento taasi waxa kale oo aan aad iyo aad u jecelahay siyaasaddu inay hal albaab yeelato oo laga soo galo lagana baxo wixii siyaasadda in isaga iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha la doortay ay noqdaan labada qof ee jaangooya siyaasadda dalka lagu hadayo annagu haddaan gobolka awdal nahay ma doonayno in siyaasaddu ay dhowr albaab yeelato oo anaga ninka siyaasiyan noogu sareeyay the highest political figure in the region waxa weeye gobolka ka soo jeeday waa madaxweyne ku-xigeenka wixii siyaasadda mudana madaxweyne waxaad noo soo marinaysaa madaxweyne ku-xigeenka ayaad noo soo marinaysaa waxa uu gacanta ku hayana madaxweyne ku-xigeenku waa inuu dadka gobolka ee uu matalo si cadaalada ay ugu qaybiyo oo wixii gacantiisa soo gala oo cadaalad ugu qaybiyo waliba isagu isqadiyo ayaan leeyahay waxyaabaha kale u baahan in ma garanaysaa wax laga qabto waxa kamid ah musuqmaasuqa in la dagaalamo shaqayn la abuuro waayo dalku maanta 90% waa dhalinyar shaqo la'aan baa jirta dadkuna jaamacadii ka soo wada baxeen heer kasta oo shaqana way qaban karaan marka in shaqo abuur la sameeyo barnaamijka shaqo qarana in la xoojiyo ama barnaamij ka wanaagsan dawladdu la timaado waxa kale oo aan jecelahay maadaama hadda 3 sano aynu jirnay in ka badan in dadka dawladda loo xulanayo lagu xulo aqoon karti iyo khibrad in lagu xulo ayaa fiican Somaliland
xilwareejin qiimo badan run ahaantii waxay noo dhacday doorasho qurux badan maantana waxaa dhacday xilwareejin qurux badan waxaana ku ammaanan madaxweynihii hore ee Soomaaliland mudane Muuse Bixi Cabdi madaxweynaha cusub anigu ma hambalyeeyo waan ducaynayaa waxaan leeyahay Ilaahay kugu asturo xilka mas'uuliyad culus bad qaaday waxaana leeyahay ninkay ku hadhay hawlo u taala Soomaaliland oo dhan barako dooratay cid gaari kuma doono inta haddaan kaga imaado waqtigii ololaha madaxweyne Cabdiraxmaan wuxuu ballan qaaday ballamo badan waxaan sugaynaa boqolka cisho u horeysa ballamihii wuxuu ku fuliyay sida wadada isku xidhan loo yacday iyo Boorama Tambaki iyo isku xidhaysa Boorama aduu dekadii lagu hayaa way badan yihiin madaxweynaha waxaan leeyahay ballan sida loo galaa way fududahay laakiin sida loo fuliyaa yeeni kula adkaan madaxweyne ballanta in laga fuliyo hadii la helaa waxa lagu kula xisaabtamayo ee anu kula dhaqmi doono ee anu kula macaamili doonaana waa boqolka cisho wixii ka dambeeya waxaad fuliso madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaad waan ku duceynayaa Allah ku asturna waan leeyahay xilka weyn ee lagu eegmaday ummadana walaale kii walaaleeya ka dhig way hawlo badan waan malaynayaa nin waliba wuxuu turtuuray in ba suga xilka maanta idinku wareejiyay Allah idin safro Allah idin fudayo kulay mas'uuliyad culus tahay inuu Ilaahay idin fudayo Soomaaliland dadkii isku wada noqotaan kulay dalka baahiyo badan baa ka jira baahiyihiisu faray kama qodna baahiyo dalka jirta oo dal aad waxaan ka midna dawladda saddexaad waliba aad u sii hooseeya waxaan rajaynayaa madaxweynuhu ballan qaadadii uu sameeyay kulay sidii ay u ballan qaadeen uma wada furaysay in Ilaahay horta inta wanaagsan inuu waafajiyo aan qodobkaas horta ku dadaaraya inta wanaagsan inuu waafajiyo mas'uuliyadana waxaan filayaa kulay dadku iska xuleeyeen oo madaxweyne loo sheegi maayo maanta laakiin dadka waaya araga ana aqoon iyo xifad iyo waxa ka horeysa waaya arag dal iyo dad yaqaan qofkan mii qof dalkan iyo dadka kala garanaya madaxweynuhu inuu magacaabo ayaa fiican oo waxay ka soo horjeedaa qof qurbaha ka yimid oo dalkan waxba ka ogeyn aqoontu dooraba hal ahaadee wax badan ka garan maayo waayaha iyo waaqac dalka jira laakiin nin dalkan joogay oo dhaqankiisa iyo dabicigiisa iyo sidii loo maamuli jiray si loo shaqayn jiray garanaya waxbuu qaban karaa ilaahay waxaan leeyahay waxaan uga baryaa inuu xilka weyn ee la saaray ee ummadda dhani sugayso inuu ilaahay u fududeeyo una yasiro iyagana waxaan farayaa ilaahayna uga baryaa inay noqdaan kuwii ummaddan cadaalad iyo horumar ku hogaamiya ee aanan ahla odhanin arrinkooda iyo hoggaankoodaba inta haddaan ka tago maanta waxa u yaalla madaxweynaha iyo ku-xigeenka cusub ee la doortay isbeddelkii loo soo dagaalamayay muddada aadka u dheer isbeddelkii loo soo dagaalamayay muddada aadka u dheer dhowr iyo 10 sano ay u soo taagnaayeen waxaan filayaa inay khibraddeedii qaateen tusaale ahaan madaxweynahoo kale imika wuxuu xisbi mucaarada ahaa uu dalkaas soo dhex joogay muddo 15 sano ku dhow aqoonina uguma dhinna waxgarashana uguma dhinna markaa waxaan ka rajaynaa insha Allah inay isbeddelkii uu ballan qaaday oo noqdo isbeddel dhaba aanu sheeka ku dhamaanin amniga madaxweynaha oo barina si sharaf leh la soo halgamay halgamaadii wax fiican baad soo baxay Cabdiraxmaan Ciilo iyo Maxamed Al Cabdi si fiican waan barina wasiirada cusubna ee la lisaayana waan barina salaam alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh bal waxaynu filanaynaa insha Allah xukuumadda dhisa boqolka maalmood ee u horeeya iyo wixii aad ku soo kordhinayso xukuumaddaada gobolada galbeedka waxa kale oo aanu ka filanaynaa in aad xukuumaddii hore ee jirtay ee Soomaaliland kala qaybisay adiguna aad isku soo celiso gaar ahaan Soomaaliland oo dhan iyo gobolka bariga waxyaabaha ka qorshaysan waynu eegaynaa madaxweynaha tagayna wuu amaanan yahay maadaama uu waa la iga helay iyo dhaqan qurux badan oo Soomaaliland foomkayga qurux badnaynaya uu kaga tagay madaxweynuhu hore xilkiiba wareejiyay madaxweynuhu cusbaan waa lagu wareejiyay ku xigeenkiisii horta waxaanu ka filaynaa khayr maaha shar inaan filano marka u horeysa
waxaan filayaa cirrooni siyaasiye inuu waddanka wax badan ka bedeli doono inuu mataqaanaaye horumar soo kordhin doono inuu dadkii kala irdhoobayna waxaan ka rajaynaynaa inuu heshiis wada dhex dhigi doono insha allahu gobolladii inaga baxayna waxaan ka rajaynaynaa inuu sida ugu fiican ula dhaqmi doono oo ugu soo xirayn doono gobollada wax tabanayana inuu tabashadiisa wax ka qaban doono madaxweyne xiro waxaan leeyahay weliba bal gobolka awdal waa inaad hoos u eegtaa gobolka awdal oo waxyaabo badan tirsan jiray madaxweynuhu waad cusub tahay hoos u eeg waddooyinkiisa hadday tahay mataqaanaa horumarkiisa maxamed bilibili TV-ga qaranka Boorama.